xisbiga mucaaradka ee Ucud ayaa duulaan waxa uu ku tilmaamay arinta la xiriirta ganacsade Axmed Cismaan Geelle oo xukuumadda Djibouti ay doonayso inay dacwad kaga furto maxkamadaha Soomaaliland. Maxamuud Salmaan Ramaax xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga Ucud ayaa waxa la aqbali karin oo faragelina waxa uu ku tilmaamay damaca dalka Djibouti. shirkan jaraa'id amuur runtii halis ku ah ama mu'aamaraad dalkan loo soo maleegay oo la doonayo in bulshada reer Somaliland la iskaga hor keeno kow in la shaki geliyo maalgashadayaasha Somaliland waxaan u aragnaa haddaanu nahay Ucid oo aanu hadlaayo markaanu ka tashanay arrinkan foolxumada badan oo mid kaliya ahayn lagu weerarayo maalgashadayaasha dalkan Soomaaliyeed ama muwaadiniintiisaba oo ka imanaya cadawiyada koowaad ee dalkani leeyahay. waa ogtihiinoo dad badan ama dalal badan oo aynu jaarnahay ama dunida ku nool ayaa hortaagan ama aan ogolayn gooniisu taaga jamhuuriyadda Somaliland. waxay ka mid tahay tani marka muwaadiniintiisa oo aan xaq ugu lahayn loo soo maleegayo mu'aamaraad loona soo dhex marayo kooxo yaryar oo iskaashaday oo aan qabo inaanay xukuumaddu ka warhaynin. hase yeeshee waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay cid kasta oo falalkaasi ku shaqo leh ay tallaabo degdega ay ka qaado. waxa aan marnaba dhacaynin waxaan maanta soo qaadanayaa mahmaadii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu Djibouti ku yidhi takartii maroodiga dul fuushanayd ee ku tidhi waan duulayaa ee isadkee. maroodigu wuxuu ugu jawaabay kuma baan ogeyn buu yidhi inaad dul saaran tahay. Somaliland waa maroodigaas mu'aamaraadka laga soo abuurayo Djibouti ee lagu khalkhalgelin la rabo in lagu khalkhalgeliyo xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland iyo muwaadiniinteeda isku duuban oo isku mid ah. waxaanu leenahay maroodigaasoo socon mayso takaray ama duul kuma baanaan ogeyn. kiiska loo haysto ee maalmahan ay idin maqlayseen ee ganacsadahaasi weyn ee warshadaha dalka ku leh ee maalgelinta badan dalka ku leh ee muwaadinka waxaanu u aragnaa inuu qalad yahay. adduunku xeerar buu leeyahay. Djibouti ma aqoonsana Somaliland. Somaliland cid u dhalatay oo xeerarka caalamiga ah ay qabanayaan khaasatan dalka Djibouti kuwa gaarka aynu la galay mooyaane ma jirto. xamar buu aqoonsan yahay markuu leeyahay muwaadin reer Somaliland la soo qabto Djibouti laga leeyahay. waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay gef. kiiska madaniga halkuu ka dhacay ayuunbaa lagu qaadi karaa. waxaad sheegtay in kooxo yaryar arrinkan ay wataan inay xukuumaddu aanay ka warqabin. waxaad leedahay xukuumadda iyad baaq u diraysaa. waxaa saxeexday wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha dibadda, xiraalinta. maxaad ugu warwareegaysaa inaad xukuumadda ku dhaliisho? xukuumadda runtii waan ku dhaliilay. anigu xukuumadda kama warwareegaye waxa weeyaan runtii awoodaha ay xafiisyadeenu kala leeyihiin. wasiirkii waanu u tagno dee uu ila socday xogayuuye anigu ma saxeexin buu yidhi caddaymiina wuuna tusay. laakiin waxaa saxeexay waraaqaha la saxeexay anagu raggii saxeexay waxaanu leenahay waa dembiilayaal waa in kiis lagu qaadaa. baaqaan u dirayaana waxaan la hadlayaana markaan saa leeyahay madaxweynaha dalka ayaan la hadlay. xasan galaydh wararka Cable Hargeysa.